faa'iidada leedahay qofkaas ma arko macnaha qofka in tuulo la geeyo marka faa'iidooyin badan leedahay faa'iidada leedahay waxaa kamid ah qofka inuu asiga naftiisa macnaha tuulada waxaan u arkaa aniga niyaaradda macnaha qofka meel uu asiga qofka isku arko waajisay shaqadii ku degdegaan dadka arintas maxaa kala jeedaa shaqada in lagu degdego dhibaatada leedahay maxay والله شغله إن لقد دبعته من الله أو ما عرفت إلا شغلته محمو لكن قفك إنه ما عرفت والله ارتبط بواحد بدل أسكاي غلطان درنا الكوا وحنبي كرا ووضن ككلية أو دور فرصة معناها هدي أتص الشرعي وكويس الشرعي معناها سي الزول ماركنو قحوتي منها حتى الشرعي كويسو رجعنا إيه هو الكرني مع ماركنو الشرعي كويس كرتا والله قلت حتى زوجرتا أو ماركنو محل الجرادة كلية ماركنو تولين كلو جيا أو ماركتي السكول في واي السكول في ماركنو قبلها لو جينين أما دمركا وجرتا وحنا إسلام أنا جاركتي أنتي ومركا كفتر هوا كدرو يعني الجرادة إلا ربورتا يعني قفك الجرادة وحول بو قفك رجع يعني وحول وقت كيسكرو ماركنو أدكتا قفك دمركنو وقت كيستو برنامج كمان تو حمرتي يبوه علي آذن علي oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Jarmalka ay ku dhaqan wax ka bartay ka shaqaysta in muddo ahna dabcan ku nool Ali marka hore soo dhawow sidee u aragtaa barnaamijkan marka hore walaal waa santahay barnaamijkan waxa warkaa barnaamij aad muhiim u ah waqtiga loo baahnay ma aragtay waqtiga loo baahnay inay imaaday marka waa kaaga mad celiha barnaamijkan waa ku dhawahay waa santahay Ali ayaa mudan dad badan Soomaaliyeed dhowr 10 sano ama 20 sano ugu dambeeyay soo galay dalka Jarmalka inkastoo labadeennaba jiilkii hadda ugu dambeeyay aan hadana raacba inaga dambeeyay sidaan isleeyahay dalkan waxa aad looga cawdaa la qabsigiisa inuu adag yahay aad ay u adag tahay noloshiisa dad badan sidii u arkaan dadka waxay u arkaan dabcan noloshiisu inay caadi tahay wadamada kale ay la mid tahay systemku in la qabsado inay muhiim tahay maxaad isleedahay waxyaabaha caqabada leh ee dhalinyarada dalkan markay soo galaan way la kulmaan wallahi caqabada mar walba iska jirta hadii aad tahay qof qaxootiya wadan Europeana kugu dhaqan ahayn kugu maar system ahayn wadan systemkiisa markii uu dhan yahay aad soo gasho waxa qofkan la rabo inuu u noolaado sidii uu maaragtay marka hore ahay aad u adkaahay laakiin mar walba la qabsiga muhiimadda maaragtay la qabsiga waxay tahay dawladda waxay ka leedahay qorsho oo qofkan sidee wadanka u la qabsan lahay system ay u dhigtay marka qofka hadii uu isku dayo systemka dawladda ay u dhigtay oo qaxootiga loogu talagalay inuu habraacaas inuu maaragtay oo aqbalo oo raaco wafuuda qofka inuu la qabsado marka dawladana qorshayaal badan ay maaragtay inuu ay barnaamijkaas maaragtay u dhigtay qofka markuu wadanka soo galo system uu maaragtay soo maraa markuu sharciga helo systemka loo maraa marka systemyadaas qofka hadii macnaha oonan asiga go'aan gooni oo qaadanin oo systemkaas raaco wafuuda qofka inuu wadanka la qabsado inuu maaragtay systemka maaragtay dawladda u diyaarisay maxaa kamid ah marka cali systemka marka hore qofku ku bilaabanayo oo dadka qaarna ay la qabsan karin ama ay adagtay wala systemka maaragtay dawladda u dhigtay waxa waayay horta qofka markuu wadanka soo galo marka uu horeyso soo galo oo wadanka iska diibo waxa waay marka waxa la geeyaa kaama la geeyaa kaamkaas maaragtay qofka waxa qasabay inuu caafimaad ku maro inuu system kale ku maro in maaragtay wareysiyeer looga qaado kadibna qofka inuu maaragtay marxalada labaad u gudbaa oo dadka maaragtay marxalada labaad transferka intaas marka qofku wuxuu ku jira dawladda gacanteeda ilaa qofka uu sharci ka helo qofka marka uu sharci helo go'aan wuxuu leeyahay inuu maaragtay kaamkii ama meeshii dawladda ay gees inuu ka baxo inuu si private maaragtay inuu guri u kireysto oo guri maaragtay raadsado iyo inuu maaragtay nolosha maaragtay hadba sidii markaas oo isdhaxgalka lagu sameeyay wadankii loogu talagalay inuu maaragtay asiga iskiis isku wado maaragtay oo systemka maaragtay hore u sii raaco marka systemka dawladda ay dejisay dadku way gelin miyaysan helin maxaa kamid ah marka qaladaadka ka dhaca waxyaabo aysan ay dhibsanayaan dadka wallahi qaladaadka wuxuu ka yimaadaa go'aanada qaldan oo qofka macnaha qofka wuxuu rabaa mar walba wax fudud uu rabaa macnaha wuxuu rabaa su'aalo kale wadankii uu soo galay in isla markii interview oo maro sharciga la siiyo oo shaqeeyo oo maaragtay wadankii oo maaragtay soo rabo asiga oo ka helo laakiin dawladda intaas way ka soo horjeedaa macnaha qofkan waxay ugu talagalay qofka haduu dhalinyaro yahay wadanka soo galay
muhiimadda ay ka leedahay qofkan keliya ma ahan qaxootinimo iyo inay sharci siiso iyo inuu iska noolaado muhiimadda ay markii dowladda ka leedahay waxa waaye qofkan sidee loogu nacfi karaa asigana uu maaragtay u naqon karaa qof keligiis iswado taasna waa integrationka maaragtay sababtay u dhahaan qofkan waa inuu integration sameeyaa integrationka waxa ugu horeysana waxaa maarkan integration ugu sameeya waxaa waaye marka hore inaad wadankii sharcigiisa inaad fahanto luqadiisa inaad fahanto inaad aas-aaska wadanka maaragtay systemkiisa inaad maarkan la soo qabsato oo marka hore iskoolkii waxbarashadii kadibna maaragtay shaqooyinkii iyo xifradihii maarkan oo gudubto laakiin cali wax fiican baa sheegaysaa dadku marka sidaa miyaana wax loogu sheegin mise wacyigelin la-aan baa jirta si iyagaan doonaynin hadda intaa sheegaysa way wanaagsan tahay qof dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo Jarmalka soo galay haddii dee dowladda ay gacanta ku dhigto intaana loo sheegay inuu diidi doono oo malayn maayo marka intee wax ka qaldan yihiin is leedahay wallahi waxay wax ka qaldan yihiin horta isfahamka hoose macnaha qofka laba dhinacba maarkin anigu waa u aanayaa qaladka meesha uu ka socdo waa marka hore qofka uu rabo wax war fudud iyo marka labaad oo qofkii uu rabo inuu maaragtay shaqo iyo lacag marka qofka wuxuu isleeyahay macnaha wuxuu arkaa tusaale kale adigoo kamaal oo maaragtay wadanka 10 sano jooga ama u dhow wuxuu rabaa marka levelka adiga aad ku nooshahay asigoo hadda soo galay inuu ku noolaado levelka oo kamaal oo 10 sano joogay inuu ku noolaado taasna waa adag tahay marka anaga waqtigaas soo galaynay ma jirin ku daysi hore ma jirin dad macnaha maaragtay oo wax noo sheegay ma jirin laakiin waxna caawisay waxay ahayd waxaa nacmay systemkii wadankii macnaha dowladda ay noo dhigtay dowladdana mar walba adiga systemka ku dhigaysa waxaa waaye midka adiga kugu haboonaay marka haddii aad systemkaas kasoo horjeesato aad dhahdo maantaan soo galay beri inaan shaqaystaan rabaa inaan maaragtay saan raba inaan u noolaada rabaa xogaa aad ka ahay inaad maaragtay systemka aad maarkin oo ku dhex jirto okay cali xilligaa soo gasheen ilaa iyo hadda systemku waxba kama duwana waxba kuma kala duwanaa leedahay si fiican marka sidee ula qabsateen adinka waxyaabihii kaa hor yimid caqabadaha ahayd maxaa ka xusi kartaa wallahi caqabadaha iga hor imaaday hal iyo laba maahan waa badan yihiin maaragtay waxa waayey aniga markaa wadanka soo galay hab maarkin oo habkan ku soo galay iyo habkii maaragtay macnaha systemka markaas weli waa iska adkeed waxay ahayd xilli maaragtay qaxootiga aad u badan yahay wadanka culays uu dareemayay xataas markaa waqtigaas ma jirin system sax ah oo dowladda ay markaas leedahay oo maaragtay iswaafaqsan qaxootiga loola dhaqmo ilaan waxaa jiray wax la dhaho maaragtay qulqul qaxootinimo maarkin oo qaxootiga aad u badan waxaa dhacaysa xataa qofka inuu maaragtay hal mar 5 meel iska dhiibo inuu maaragtay gobolkan tay iska dhiibo gobolkaas taga magac kale iska dhiibo macnaha isku dhaxyaa jiray isku dhaxyaas darteed dowladda waxay u samaysay system qofkan in meeshii markaas uu iska dhiibo oo maaragtay laga qaabilo inuuna ka guuri karin xataa marka hore waxay ahayd qofka markuu intuuna sharci helin inay dowladda gacanta ku hayso qofka uu dhaqaaq karin markii dambe xataa system waxay keeneen qofka asigoo sharci leh inuuna si maarkan fudud u guuri karin ay dhahaan maarkan uu 3 sano inaad degnaato waa meeshii sharciga ku heshay inaad ku noolaato waay calada ku watay waagii hore qofka markii ausweista diiwaangelinta la siiya cagaaran lama ogoleen inuu ka baxo degmada ama gobolkii markaa qaabilay lama ogoleen laakiin hadda gobolkay doonaan aadi karaan dadka waa jiray sax waay ausweista maarkan hadda gobolka qaatay kartaa tarinkaana taraaci kartaa waagaas ma jirin laakiin wixii 15 sano 2015 wixii ka horeeyay way adkeed qofka inuu dhaqaaqo inuu meel walba tago markan way adkeed kadib waxaan waafo waaga dee wadanka waxoogaa uu yaro waashay dad badan oo kale jinsiyadana waa soo galeen tareemada la saarnaa gobolladaasaa lasaga gooshiyey dhibaatooyin yaroo iska xaalada amniyin inay dhaceyna laga yaabo systemkii uga food noqday sidaasaa berigaas loo xayira laakiin hadda si caadi nolosha kusoo laabatay laakiin dadka 3 sano inaysan ka guurin degmada ama gobolkii markaa iyagoonan wax gurundaanan keenin iyadan way jirtaa taa marka maxaa sababay iyada sidee la isaga xallin karaa dowladda waxay maaragtay waxay ayaga u aragtaa xal qofkan haddii ilaan qofkan lagu dhahayo sharcigu qaatay waa qof ugu yaraan maaragtay wadanka sanad ama sanad iyo bar joogo waxaa laga yaabaa luqadiisa inayna fadhinin inuu systemka wadanka la haysan sharci shuruucdii iyo wixii inuu la haysan marka haddii uu gobolkan ka guuro gobol kale tago haddana gobol kale ka guuro gobol kale tago intaas soo raadinaya la qabsi xogaa qofkii waqtiga ugu dhimaayo dowladdiina maarkan qofkan muhiimadda ay ka lahayd maaragtay amba
muhiimadda asiga maaragtay meena sida u fiicneed qofka ma helayo laakiin qofka meesha sharci lagu siiyey haddii uu degan yahay oo maaragtay 3 sano ku noolaado 3 sano wax badan lagu qaban karaa luqadii qof ku bara karaa systemka waddanka uu fahmi karaa waddanka waxaa ka jiro waxyaabo maaragtay system la dhaho ausbildung ka jiro oo xifrada ausbildungkaas maaragtay waagi hore adkaa jiray oo qofka shahaadooyin waaweyn looga baahnaa jiray inuu maaragtay la imaado si loogu ogolaado hadda laakiin heer waxay maray in shahaadada luqadda maaragtay B1-ska in maaragtay ausbildung xataa lagu sameey karo oo la soo fududeeyo si macnaha suuqa maaragtay shaqada iyo maaragtay ay u fududaan marka jawaabta macnaha muhiimadda ay ka leedahay waxa waaye qofka inuu nagaado 3 sano oo maaragtay meesha lagu xukumay inuu maaragtay meeshaas lagu qasbay inuu ku noolaado inuu macnaha systemka maaragtay waddanka iyo sharci inuu maaragtay shuruucdii luqadii isdhexgalkii xifradii wixii inuu maaragtay la qabsado oo maaragtay waqti ka dhiman waa maasan tahay cali ulajeedada marka loo cararayo oo looga guurayo tuulooyinka ma waxbarashada laga cararaya mise tuulooyinka xun maxay dadka wallahi horta tuulada maaragtay anigaan kula hadlayo maaragtay 8 sano tuulo ku soo noolaay maaragtay marka waddanka soo galay 2 bilood kadib tuula la transferay intaas ma tuula ku noolaay marka dadka inta badan waa sax waxay rabaan qofka markuu waddanka soo galo waxyaabaha caqabadaha ugu badan dadka ay ka sheegtaan waxa waaye wuxuu ku leeyahay tuula leeyahay aniga qof ehelkiisa waca ama qof asxaabtiisa wuxuu leeyahay tuula leeyahay meeshaas kuma noolaa karo 2 guri ama 3 guri ku taalo tariinka maaragtay macallin jiray uu go'aa wuxuu ku eegay maaragtay 12 saac galmo ku eegay bas male wax saas oo kala laakiin faa'iidada leedahay qofkaas ma arko ana qofka in tuula la geeyo marka faa'iidooyin badan leedahay faa'iidada leedahay waxa kamid ah qofka inuu asiga naftiisa macnaha tuulada waxaan u arkaa aniga inay niyaaradda macnaha qofka meel asiga qofka isku arko oo macnaha is xisaabiyo ileen tuulada maarkii inuu malaho magaalada kala baashaalkan boodboodkan meel maaragtay maxaa la jiray Soomaali istaag iyo waxyaabo lamid ah malaho macnaha qofka adiga iyo dantaada qof nigu dhex jirta male marka waxaad u hoggaansamay systemkii habkii qaxootiga loogu talagalay inuu maaragtay waddanka u maro haddii noqoto maaragtay luqadii haddii noqoto iskoolkii haddii noqoto maxaa la jiray fuurashaankii haddii noqoto shaqadii macnaha adigoo dhisan luqad ahaan u dhisan qof ahaan u dhisan aqoon ahaan u dhisan had maaragtay tuulada ka soo bixi markaasna xaq waxaa u leedahay meesha aragtay inaad ku noolaato sidee ahayd maaragtay berigii tuulada loo geeyay nin dhalinyaro ah oo cusub oo waddanka hadda soo galay oo tuulo la geeyay xaaladiisa dabcan sidee ahayd maxaa kula yaab badnaa maxaad la kulantay kahor intaadan qaadan go'aanka inaad naftaada badbaadisa ahay wallahi tuulada horta waa iska maaragtay nolosheeda waa iska adag tahay macnaha qofka markuu waddanka soo galo oo waddan Yurub soo galo wuxuu macnaha fila kara maan inuu meel tuula 4 guri ama 5 guri ay ku taalo la geeyo maaragtay uu ku noolaado laakiin qofka wuxuu fiirin macnaha waxaan fiiriyay maaragtay leen tuulada muhiimadda ugu weyn maaragtay inuu tuulada ugu nagaado waxay dorto waxbarashada macnaha inaan meesha waxbarasho ku haysto inaan maaragtay systemka waddanka maaragtay markaas oo aniga igu talagalay oo habraay maaragtay inuu waddankii markaas loogu talagalay inaan maraya maaragtay ugu fahmay marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd waxbarasho waddanka waa ku cusbahay maaragtay qof waddanka ku cusub waxaan ahay maaragtay oo markaas soo galay luqadda ma aqoonin maaragtay waddankii systemkiisa maaragtay shuruucdiisa marka muhiimadda ugu weyn maaragtay tuulada ugu nagaado waxay ahayd waxbarasho inaan isla meesha wax ku baran lahayd haddii aad bari magaalo ratane adigoo wax bartay dhisan magaalada maaragtay meesha aad ugu noolaan karo aad maaragtay magaalada ugu guuray laakiin inaad maaragtay waxbarasho muhiimadda weyn waxay ahayd waxbarasho marka adiga marka hadda bal faa'iido maxaa faa'iido ka qaaday hadda magaalo weyn aad joogtaa oo ku dhaw 2 milyan ee ku nooshahay ka shaqeysaa wallahi horta tuulada waa ka timid sax marka in magaalo magaalo loo keeno ma yaa wanaagsanaa lahayd mise tuulo in loo geeyaa wanaagsanaa lahayd haddii hadda dib loo celiyo waxaan leeyahay tuuladii sababtoo waxaan arkay macnaha markaan waddanka soo galay dad badan ku soo galnaa dhalinyaro badan oo weli ilaa hadda aan asxaab nahay oo markaas isla markii doortay inay maaragtay magaalo ku noolaadaan amba fursad u helay ilaan transferkan lagu sheegayo transferkan oo tuulada lagu geeyayo ma ahan maaragtay waa inta badan inkastoo markii tuulada la isgeeyo haddana waxaa jiro mid amba labo maaragtay magaalooyinka la geeyo marka dadkaas magaalada la geeyay amba markii tuuladana la geeyay inay kasoo carareen magaalada tagay macnaha dad ma ahan maanta nolosha iskugu fadhiyo haddii noqoto isdhexgalkii haddii noqoto luqadii haddii noqoto xifradii haddii noqoto waxbarashadii ilaan qofka markuu magaalo imaado
waxa waaye waxa uu hogaamiyaha adiga qofkii kaaga soo horeeyay macnaha qofka kaaga soo horeeyay hadduu shaqaysaa adigna waa shaqaysay laakiin tuulada waxa waaye maaragtay waxbarashadaas taalo dadkan waxay ku kadsoomaan inta bare waxay ku kadsoomaan maaragtay shaqada macnaha qofka markuu wadanka soo galo caqabado mid familia iska jiro mid waxa iska jira maaragtay oo dadkii aad soo tagtaa iska jiro ha qofka marka magaaladana maaragtay dhaqaalo qofka wuxuu u baahan yahay dhaqaalo badan u baahan soo ugu noolaado marka qofka nolosha waxay ku qasbayso inuu isla marka hore shaqo ka galo inuu luqadii ka tago inuu waxbarashada ka tago oo maaragtay waa ku aflaxa leedahay inaad tuulo ka soo bilaabo inaad tuulo ka soo bilaabo haddii lii celiya xataa markaan soo galo lii celsho maaragtay leedahay intee dowro lahayd tuulada marka ka dhawaajisay shaqadii ku degdegaan dadka arrintaas maxaa kala jeedaa shaqada in lagu degdego dhibaatada leedahay maxay tahay wallahi shaqada in lagu degdego dhibaato aad weyn leedahay oo maaragtay in la shaqaysto ma xumo laakiin qofka inuu maaragtay wadankii markuu soo galo asigoon luqadi baranin asigoon isdhexgalki samaynin inuu shaqeeyo way adag tahay haddii aad markaad cusub tahay fursadda macnaha qofka markuu wadanku cusub yahay fursado waxaa haysataa waxbarasho haysataa inaad wax barato inaad maaragtay macnaha qof wadanku cusub aad tahay kama maaragtay xishood uma aragtid inaad wax walbo zero eber inaad ka bilowdo xishood uma aragtid laakiin markaad shaqo gasho maaragtay waxbarasho inaad kusoo noqoto way adag tahay dhaqaale ahaan inaad kusoo noqoto way adag tahay oo nin maanta maarkin oo lacag fiican qaadahayay hadduu beri 2 sano 3 sano isagoo shaqeeyay dhaqaale ahaan kusoo noqdo way adag tahay qof ahaan adigoo wadanka 5 sano joogay 5 sano shaqeeyay inaad waxbarasho kusoo noqoto aad zero kasoo bilowdo markaas waxaa waragtaa ceeb oo waragtaa oo markaas dad macnaha markaas oo wadanka hadda soo galay oo bil ama 2 bil joogo inaad dalaas la fadhiisato wax la barato ceeb oo waragtaa marka qofka markuu cusub yahay inuu maaragtay shaqo ku degdego waa qalab aad u weyn oo warka inuu wax barto oo ugu horeyso markan luqadda ilaan idib ugu horeyso wadan laga galo markan waa luqad qofka inuu marka hore luqadda barto kadib maaragtay luqadda markaad barato maxaa ku xigo ma xifrada samaysaa ma waxya kala samaysaa ma shaqaysaa marka waxa ugu muhiimsan oo qofka aan kula talin lahay markuu wadanka soo galo sanad ha ku qaadato sanadii bar ha ku qaadato marka hore inuu markan luqadda barto adi meeqay kugu qaadato markaa soo gashay iyo xirfadda markaa dhamaysay waxay ku qaadatay 5 sano 5 sano waxba baranaysay 5 sano waxbarasho ku jiray 5 sano ugu horeysay macnaha sida sharci hayn ma markaa waxbarashada gashay mise markaa sharciga qaatay kadib waxbarashada markaa sharciga qaatay kadib baa hoosbilinka bilowday markaan sharciga qaatay macnaha iskoolka ii socday oo maaragtay profes integration course laho oo maaragtay laga qaato shahaado dugsi dhexe laga qaata ii socday kadib maaragtay siilka iyo wixiga ama hadafka iyo wixigana wuxuu ahaa markaan iskoolka soo dhameeyo inaan xifradda maarkin farsamada inaan aado saasaan farsamada ku haysta marka dad badan cali waxay aaminsan yihiin iyadoo wadanka aanu sharci ku siin inaan luuqadiisana la baran dugsigiisa farsamadana aan la aadin ama laga shaqaysto ama sharci laga sugo dadkaa ma aragtay maxaa kula talleed iyagu wala horta dadka wax badan iskaaga qaldan jarmalka waa waxaan dhihi karaa wadanka kaliya oo dhowr fursadood macnaha haddii aad si sharciga ku wayso sharci macnaha si azuul maarkino qaxootinimo hadaa sharci ku wayso raganimo iyo howlkarnimo maarkino sharci ku heli kartaa dadka dhahayo waa arkaa dad maarkino dhahayo wadankan sharci kama haystin maxaan luqadiisa ka bartaa maxaan isdhexgal ka sameeyaa laakiin waa qalab weyn sababtoo ah waxaa jirta wadankan waxaa ka jiro barnaamij oo hadda dhowr sano ka hor ay soo saareen oo la dhaho Blybrecht oo macnaha qofka markuu sharci markuu maarkino si macnaha qaxootinimo sharci ku wayso inaad sharci ku heli karto howlkarnimadaada iyo integrationkaaga inaad luqadii barato inaad isdhexgalki samayso inaad luqadii barato inaad maarkino xifrad ugu muhiimsan weliba xifradda ku wixino macnaha maalintaad xifradda dhamayso maalinta ku xigto waxaa xaq u leedahay in sharci lagu siiyo inaad maaragtay xafiis kugu soo horeeyo markan laga maamulo aad tagto shahaadada aad geyso isla markiina markan sharciga aad xareyso marka qofka dhahayo aniga sharci ma haysti maxaan u shaqeeyaa maxaan wax u bartaa waxa waaye fursadda labaad oo isdaafsiiyay aan dhihi karaa caliyow meeqa sano ku habboon tahay qofka dhalinyarada ee wadankaa soo gala inuu isku dhiso oo wax ku barto si waqtiga dambe ee noloshiisa wadankan ay isku raacdo qiyaas ahaan qiyaas ahaan waxaan dhihi karaa maaragtay 3 sano 4 sano ilaa 5 sano macnaha maaragtay aan ula jeedo business integration qofka inuu sameeyo ilaa maarkino xifradda iyo ausbildinka maarkino dhameeyo ausbildinka waxay ku xiran qofka markaas wuxuu doorto mid waxa jira maarkino 2 sano soo ahayo mid 3 sano soo ahayo iyo mid 3 sano iyo bar soo ahayo
marka aniga waxaan dhihi lahay maarkin oo qofka inuu 3 sano 4 sano ilaa 5 sano inuu maaragtay asiga waqti isiiyo naftiisa oo ku dhiso maaragtay soo wadanka maaragtay ula qabsado maaragtay u noqdana qof maaragtay sabab loo sugaa marka sharci degdeg in loo helo ma jirto qof markuu soo galo in uu waxaad kula talinaysaa marka isdhaafo sameeyo wuxuu ku shaqaysan lahaa iyo xirfadiisina inuu barto si fiican mid kale oo ku diri lahay qofka inuu saas sameeyo maaragtay waxay boqolkiiba boqol macnaha inuu qofka sharci helo iyo inuu helin waxa way 50-50 la dhigi karaa laakiin qofka inuu maaragtay isdhaxgal luqad iyo mid xirfad inuu sameeyo inuu sharci helo maaragtay waa boqolkiiba boqol marka waxaan dhihi lahaa maaragtay dhalinyarada maaragtay waxbarashada kuwa xirfadda bartay iyo kuwa aan xirfadda baran kuwa badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka Jarmalka waxa badan maaragtay dhalinyarada aan xirfadda baran taasna waxa u sabab ah inuu qofka maaragtay sidaan barnaamijka hore kusoo bilaabnaba qofka inuu rabo system asi u gooniyo inuu maaragtay isku wado oo ah inuu meesha la geeyo ka guuro inuu magaalo weyn tago dadka markaa isku fiirsana dadka xirfadaha bartay badan waxay u badan yihiin boqolkiiba 90 aan dhigana dadka tuulooyinka iyo meesha la geeyo ku manacay maaragtay noloshoodan ka sii waday laakiin dadka magaalooyinka degan way jiraan laakiin waa dhif iyo naadir dadka magaalooyinka degan maaragtay xirfadda bartay waxaana u sababay qofka markuu magaalo weyn imaado dhaqaale ahaan maaragtay xirfadda maaragtay inuu dhaqaale yar lagu qaataa oo dhaqaale saas weyn lagu qaato qofkana wuxuu rabaa inuu maaragtay noloshana maaragtay nolosha magaaladan waa nolol qaaliya marka qofku wuxuu ku qasban yahay ama naftiisa maaragtay oo ku qanciha inuu shaqeeyo oo xirfaddan iyo waxaan iyo maaragtay uu ka tago marka dhalinyarada xirfadda kula talinaysaa dhalinyarada inay joogaan tuulada meesha la geeyo meeshii dowladda ugu talagashay inuu joogo qofka inuu ku qanco dhanka hablaha markaan nimaadno iyaga tuulooyinka looma transfero arrintaas dad badan baa qaba maxaa ku qiyaasaysaa sax ma kula tahay horta haddii ay jirtaan maxaa ku sabaynaysaa walaa horta xantaas way jirtaa oo maaragtay maxaa dhalinyarada keliya maaragtay tuulooyinka loo geeyaa oo maaragtay iskugu lafi waaye maaragtay gabdhaha loo geenin ama dumarka way jirtaa waxaana isla aniga aragti ahaantayda markaan kaftan xoogaa ku daro macnaha dhalinyarada in la rabo horta macnaha qofka dhalinyarada wax walba qofka ragga macnaha wuxuu u adkeysan karo maaragtay way adag tahay qofka dumarka inuu adkeysato siiba ka Soomaali ahaan markaan macnaha qofka maaragtay dumarka oo maaragtay xijaaban xogaa ay adag tahay tuulada maaragtay tuulo nolosha iska adag tahay sida la sheegay tuulooyinka mar walba waxa u badan dadka xag jirka macnaha dadka maaragtay oo qaxootina ceebka oo magaalka adag u badan marka way ogyihiin marka dadkan dowladdan systemka waxa wada way ogyihiin saas darteed maaragtay gabdhaha waxay jeceliin inta badan inay maaragtay ay magaalooyinka waaweyn maaragtay ay keenaan laga yaabo inuu la jeedaan gabdhaha maaragtay hore in lagu guursado maaragtay mustaqbal hore maaragtay looga macnaha ay ku samaystaan ragga macnaha raggana ugu talagaleen inay soo maaragtay loo dhabar adeegaan oo wax soo bartaan laakiin tuulooyin la geeyo way jiraan gabdhaha inkastoo wiilasha juqda iyo xuduudaha waddanka lagu taxay si fiican dhalinyarada yar yar ee 30 ama ka yar ama 35 wixii ka yar tuulooyin gabdho la geeyo ku dhowda waa jiraanoo marka waxaa isweydiiyey gabdhaha hal xaafad iyo hal guri bay magaalo ka dejiyaan oo tuulo oo magaalo u dhow raggana waxay dejiyaan hal guri oo xuduud u dhow oo galabkii basku uu imaanayo marka arrintaas dabcan ilaa hadda wax fasiri karaa intaas hadda adiga sheegtaa ka arkay waa sax marka adigu gabdhaha ku dhowda haddaan usoo laabanay Soomaaliyeed ee dalkan Jarmalka ku dhaqan iyagu ma kuwa isbildinka sameeyay kuwana sameeyay kuwa badan inkastoo ay kuwa qoysaska markaan ka tagno caruurta haystay sax gabdhaha singalka ay waddan ku dhaqan kuwa waxbarashada aada ee isbildinka sameeya iyo kuwa iska shaqo taga kuwa wallahi waxaan dhigaa horta gabdhaha si marka loo fiirsho maaragtay wiilasha way ka dadaal badan yihiin macnaha dadaal markaan dhahayne horta macnaha dhalinyarada culays xoogaa wax iska haysta dhaqaale macnaha oo ka imaahayo maaragtay familka ilaan familka waxa waaye maaragtay qofka markuu Yurub galo habeenka uu galo maaragtay xisaabta lagu darsadaa marka qofka xoogaa culays waxa saaran oo famil dhaqaalaha saaran oo maaragtay laga yaabo inuu maaragtay xaasi caruur soo tagay amba qoys weyn oo ka soo tagay marka qoyskana waxa waaye wixii qofka Yurub uu galay maaragtay waa inuu biilkii iyo noloshii xoogaa wax isbedelaan
marka qofka waxa ku adkaa hayso inuu maaragtay asagoo tiisi hadduu ahaa hataa qof niyad leh rabo inuu wax barto rabo inuu maaragtay wadanka systemka wadanka maaragtay waxbarashadii iyo inuu maaragtay inuu dhinac ka galo waxa ku adkaaysa marka systemka waxa ku adkaayso inuu wixii isku wado inuu maaragtay reerka biilo maaragtay wuxuu isla barbardhigaa marka haddii aad shaqaysato intaas helay haddii aad maaragtay waxbarasho gashan intaas helay marka shaqada iyo waxbarashadani waxa saddex jibaar mar walba waxa badan shaqada badan intuu ka helayo marka waxaan dhihi karaa marka culayskaas gabdhaha maaragtay inuu ku yaryahan inkastoo aan xog fiican ka haynin culayskaas inuu ku yaryahay aan maaragtay inuu u maleeyaha marka gabdhaha maaragtay waxbarashada saas inuu maaragtay gabdhaha waxa laga masuulayo waa aadaan gabdhaha saas aan jeeyaa arintaas arin fiican waa adiga si gaar ah cali oo qaybi dambe aan soo laabano si fiican adigu bal ka waran waxa isbillin baa sameysay waqtigaas adkaa iyo hadda maaragtay sida ugu faa'iiday